بسم الله الرحمن الرحيم. ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waa salaamaya salaan kadib waxaan galabta xarunta xisbiga shacabka Soomaaliyeed aan ku qabanay shir jaraa'id oo runtii aan kaga hadlayno xaaladda ka taagan gobolada qaar ee dalka Soomaaliya oo ay kamid tahay gobolka Hiiraan iyo gobolada ay kamid yihiin Gedo kale iyo degmooyin hoos yimaada oo ay ku fataheen wabigu ku fatahay fatahada wabigaas oo sababay khasaaro dhimasho iyo dhaawac iyo mid hantiyadeed iyo in gobolada qaar iyo degmooyinka qaar la isu gudbi waayo waxaan leenahay intii ku dhimantay Ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna waxaan leeyahay in Ilaahay caafiyo inta ku dhibaatooday ee dhibtu saameysana in Ilaahay dhibka ka dulqaado runtii waxaan filayaa ama aan qiyaasayaa burburkii kadib in ilaa tiro 6 jeer ku dhawaayay fatahadaasi wabigaasi ay u fatahay ulina aan qorshe cad laga yeelan oo runtii looga hortagayo caqabadaha dhibaatooyinka jira marka dawladda iyo maamul goboleedyada iyo sida mataqaan maamulada meesha ka jira ka taliya waxaan ka codsanayaa in qorshe cad laga yeesho arintaas iyo ganacsato iyo shacabba sidii ay khasaarahan maanta dhacay uusan mar labaad aysan u dhicin ama uusan u soo laaban ilaahay waxaan ka rajeynayaa dhibaatadaas sida ugu dhibkeeno Ilaahay naga saaro waxaan kaloo baaq u dirayaa ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda dalka iyo dhammaan intii wax ka tari karta ama wax ka geysan karta dhibtaas ka dhacday baaxadda leh gobolka Hiiraan iyo mataqaana nawaaxigiisa iyo gobolada kale ee khasaaraha wabigu uu gaarsiiyay waxaan leeyahay laga qayb qaato gurmadkaas sidii ummadda iyo shacabkaas iyo bulshada lagu gurban lahaana in loo wada istaago waxa yeelay waa shacab Soomaaliyeed waa dad Soomaaliyeed waa dadkeeni waa shacabkeeni waa ummadii madaxdeed iyo mataqaana mas'uuliyadda loo hayay marka waxaan ka codsanayaa in arintaas qayb lixaad laga wada qaato si gaar ah dawladda federaalka waxaan leeyahay iyada ugu mataqaana tuntun markaas dalka oo dalka oo dhan mas'uuliyaddeeda mataqaana madax u ah marka iyagana dawladda waxaan ka codsanayaa inaysan hagran oo hagrasho mataqaana ka hagran dhibata halka ka dhacday ay kaalintooda mataqaana dawladnimo iyo mas'uuliyadnimo ay ka muujiyaan maxaa yeelay lacagaha waa loo isticmaalaa siyaabo kale meelo kalena waa lagu target gareeyaa kharashaadka dawladda marka waxaan leeyahay oo siyaasad iyo barnaamijyo badan ay ku saleysan yihiin laakiin waxaan leeyahay yaan loo hagran yaan loo mataqaana maxay ahayd hal hagran goboladaas dhibtu soo gaadhay waxaan leeyahay arrintaas si wada jir ah aan uga wada qayb qaadano waxaan inta raacsanayaa dadka mataqaana bulshada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed iyo mataqaana maamulada iyo dawladda waxaan leeyahay lacagaha la bixinayo lagu bixinayo mataqaana gurmadkaas wabiga fatahay ee dadka iyo bulshada loogu gurmanayo waa in qof walba oo lacagtaas ama ay kharashkaas ka baxay meesha kharashkaasi uu galay dib loo daba raaco lagana warhayo maxaa yeelay waxaan ognahay oo hubaal ah in dhibaatooyin badan waddanka ka dhacay dhaqaalo badan loo aruuriyay dhaqaalahaasna si khaldan loo isticmaalay ama si khaldan loo lunsaday marka waxaan ka codsanayaa shacab meesha ku dhamaaday shacab meesha ku baaba'ay hanti baa ku baaba'day gobollo dhan oo waaweyn oo gobollada dadka ugu waaweyn ka mid ah ayaa khasaarahaasi gaaray marka sidii aan uga soo kaban lahayn waxay u baahan tahay in daacad laga noqdo kharashaadkaas la bixinayo meel lagu ogaado cadeynteedana mar walba lala wadaaga bulshada iyo shacabka dhaqaalo ka baxay marka arrintaas saasaan aan ku xoojinaya mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed iyo mataqaana cid kasto mataqaana u dhaawacay dhibkaasi in aan meel uga soo jeesano dhibtaas ka xisbi ahaan waxaan rajeynayaa insha Allah in xisbiga shacabka Soomaaliyeed kaalinteena anaguna aan ka qaadan doono ummadeenaasna aan u gurman doono waxaana dalka madax loo yahay oo mas'uuliyadda loo hayaan waa shacabka Soomaaliyeed marka inaan kaga nimaano aragtida gaaban ee siyaasiga ah ee meel dhow mataqaana fiirisa inaan ka aragti dheereeno oo aragtidina meelo badan ay fiiriso dalku gobol iyo laba gobol iyo afar gobol ma aha dalku waa baaxad weyn yahay dhibaato kasta oo dalka ka dhacdana waa midna wada saameynaysa haddii xuduud wax ka dhacaan haddii ay wabiyaashaas sida khasaaraha maanta taagan ay dhacaan iyo haddii dhibaato kaleba ay dalka ka dhacdo waa midna wada saameynaysa xaqna ay naga saaran tahay mas'uuliyadna ay ka wada saaran tahay madaxda dalka marka waxaan leeyahay arrintaas meel uga soo wareejeysano arrintaas garabkeedana mataqaana yaan loo kala hadhin shacabka iyo ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay aan isu gurmano arrintaasna aan ka qayb qaadano aan gacmaha is qabsano saxaafadana waa macad celinaya aad baa mahadsantihiin